Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh akhyaarteyda youtube soo dhawaada waa mar kale video cusub aan idiin soo gelinay nabada aan isugu soo noqonay ilaaha mahad iska leh maanta waxaan idiin wadaa sharaxaad miiskaas aa ujeedaan miiskan waxaan u sharaxay dalab aroos oo ii imaaday waxaan iibiyaa toortooyinka sidoo kale waxaan sharaxaa miisaska toortooyinka si habeenkaaga habeen qurux badan ay kuugu noqoto ama habeenka walaasha habeen qurux badan oo kuugu noqdo insha Allah nala soo xiriir waa la idin qurxin doonaa dizaanada iyo kuwa kale ka duwan aad u qurux badan ayaa idinkugu nashqadeyn doonaa youtube channelka naga daawanaysan waa Hani Jaafuli sidoo kale waxaa nagala soo xiriiri kartaan facebookgeena Hani Jaafuli page-ka aan ku leenahay halkaasna waa nagala soo xiriiri kartaan toortadan sidaan u sameeyey miiskan sidaan u nashqadeeyey insha Allah waa idinla soo wadaagi doonaa intaan in ka badan haddii allaha awoodal uu raali ka noqdo asxaabteyda please meesha waa ku cusbahay like-ta subscribe-ka commentiga share-ka insha Allah xaggiina waaye idhiirigeliya kulama idhiirigelisaan oo maxay hor socod aan arko in dadkayga ay garabkayga taagan yihiin kulama aan sii dhiiranayo muuqaalo cusubna aan idiin soo sameynayo waxyaabo badan oo simple ah oo ka faa'iidaan insha Allah aan idiin soo geli doono haddii Ilaahay dhaho marka waa inay dhiirigelisaan igu soo dhaweysaan meeshaaneyto ilaaha mahad iska leh keegan gabar iyo wiil loo sameeyay hambali iyagana ilaaha ubad khayr qaba ha kala sii gurigooda gurinaga allaha uga dhigo aad iyo aad u mahadsantihiin insha Allah qaybtan waa qaybta gurigayga aan ku duubay waxaan u xigi doonta qayb dambe oo aan xafladii arooska joogno oo nashqadeynay insha Allah kulli fasaxa ma haysan sawirada gabadha iyo wiilkeega oo keega jara inaan idiin soo geliyo sidaas daraadeed ayaan maxaydi u soo gelin waaye marka waa tana qaybtii labaad oo arooska aan tagnay hoteelkii waa lagu imaanaa hoteelka waa hoteelkaaga lagu imaanaa ama gurigaaga waa lagu nashqadeynaa waa lagu qurxinaa keegiga lagu soo sameynaa maasha Allah shaqadaas oo dhan waa laga qabanaya insha Allah na soo dalba aad iyo aad u mahadsantihiin